gabar yar ayaa dahab u iibsanaysay waalidkeed dukaan dahable ah, balse si lama filaan ah ayay ugu dhacday gacanta tuug hubaysan oo dadka afduub ahaan u qabsaday. Tuuggu wuxuu ku qasbay inay gacanta ku hayso bamnool, taas oo cabsi weyn ku abuurtay. Si loo badbaadiyo dadka la haystay, hogaamiyaha ciidamada gaarka ah ee Swat Hinkeli wuxuu iska dhigay inuu aqbalay dalabaadka tuugga. Markii uu tuuggii feejignaantiisa waayey ayuu si degdeg ah uga takhalusay. Intii ay arrintu socotay, gabadha oo lagu magacaabo Mika ayaa gadaal u dhacday. Xilligaas halista ah, Kaylee ayaa u booday si uu u badbaadiyo, isagoo si taxaddar leh u qabtay bamkii. Wuxuu ku dhiirigeliyey Mika inay si degan ula socoto, hase yeeshee cabsi darteed way istaagi kari weyday. Dhiirigelin iyo sabir badan kadib, Mika ayaa ugu dambayn heshay geesinimadii ay ku socon lahayd, waxayna si wadajir ah ula shaqaysay Kaylee ilaa bamkii si ammaan ah loo maareeyey. Kadib Mika waxaa loo qaaday meel ammaan ah. Wax yar kadibna waxaa la maqlay qarax xooggan. Markay gadaal u jeesatay waxay aragtay qiiq weyn oo cirka isku shareeray. 2 sano kadib Mika waxay noqotay dhakhtar qaliin sameeya. Ka hor inta aysan shaqada si rasmi ah u bilaabin, waxaa looga baahday inay ka qayb gasho tababar gurmad degdeg ah oo lagu qabtay xarunta ciidamada gaarka ah. Si lama filaan ah, tababarka waxaa hogaaminayay isla ninkii badbaadiyey 2 sano ka hor, Hinkeli, inkastoo Mika aysan weli garanayn arrintaas. Tababarku wuxuu ahaa mid aad u adag, mana jirin fasax la ogola. Inkastoo Mika ay si dhab ah u doonaysay inay wax barato, haddana waxaa jiray arrin degdeg ah oo ku qasabtay inay banaanka u baxdo. Markay isku dayday inay hesho fasax, waxaa loo sheegay in ogolaanshaha uu bixin karo oo keliya madaxa tababarka, kaas oo aan markaas goobta joogin. Mika waxay go'aansatay inay si qarsoodi ah uga baxdo xerada. Nasiib darro waxaa arkay Hinkeli oo markaas ku soo laabanayay xarunta. Iyadoo aan garanayn cidda uu yahay, ayay gaadhigiisa raacday, waxayna safarka dhexdiisa ka sheegtay hadallo badan oo dhaleecayn ah oo ku saabsan Kaylee, iyadoo ka codsatay inuu sir ahaan u hayo. Maalintii xigtay, maadaama ay jabisay xeerarkii xerada, kooxda oo dhan waxaa lagu ciqaabay inay ordaan wareegyo badan oo garoonka tababarka ah. Mika oo dareentay qaladkeeda ayaa tagtay xafiiska Kaylee si ay raaligelin uga bixiso. Isaguna wuu canaantay, wuxuuna ku amray hawlo nadaafadeed oo dheeraad ah. Iyadoo shaqadaas gudanaysa ayay maalin ku noqotay musqusha ragga si ay u nadiifiso. Markii ay u baxday inay soo qaadato agabkii nadiifinta, Kaylee ayaa gudaha galay. Markay dib u soo noqotay, waxay la kulantay muuqaal aanay filaynin, taasoo bilow u noqotay dhacdooyin cusub oo xiiso leh. Gabadhu waxay si khalad ah u gashay musqusha ragga, halkaas oo ay ku aragtay nin taagan. Cabsi darteed ayay isla markiiba indhaha qarsatay oo dibadda u carartay. Markii ay soo baxday, dhowr tababare ayaa arkay, waxayna ku jeesjeeseen iyagoo u maleeyay inay tahay shaqaalaha nadaafadda. Arrintaasi aad bay uga caraysiisay. Wax yar kadib, Shin Kileeg ayaa ka soo baxay musqusha. Mika ayaa weydiisay sababta uu halkaas u galay, iyadoo ay calaamadu muujinaysay inaan la isticmaalin. Kileeg wuxuu sheegay inuusan musqusha isticmaalin. Dhanka kale, Kileeg wuxuu arkay mid ka mid ah askartiisa oo taagan isagoo shaqo la'aan ah. Markaas ayuu ku amray inuu orod ciqaab ah oo 5 kiiloomitir ah sameeyo isagoo culays sita. Ninkii wuu aqbalay inkastoo uusan ku faraxsanayn. Mika waxay shaqaynaysay subax ilaa fiid, ugu dambayna waxay dhamaystirtay nadiifinta dhammaan musqulaha saldhigga. Waxay rabtay inay saaxiibteed uga cabato maalinteedii adkeyd, balse markii ay maqashay in goobta qubaysku dhawaan xirmayso, waxay iska ilowday daalkii, dharkeedii ayay bedeshay, waxayna u carartay dhinaca qubayska. Nasiib darro, markii ay gaadhayba goobtii way xirnay. Iyadoo xanaaqsan ayay dib ugu soo laabanaysay markii Kileeg uu gadaasheeda uga yeedhay. Wuxuu u sheegay inay weli hartay nadiifinta goobta qubayska. Mika markii hore way ka yaabtay, balse markii ay ka fikirtay waxay garatay inuu ogaa inaanay meel kale ku qubaysan karin. Sidaas darteed, inuu ku amro nadiifinta qubayska waxay ahayd fursad uu ugu ogolaado inay halkaas ku maydhato. Markii ay fahamtay ujeedadiisa, waxay bilowday inay u aragto si ka wanaagsan sidii hore. Kileegna gudaha ayuu ku faraxsanaa qorshihiisa. Maalintii xigtay ee tababarka gaarka ah, Mika ayaa loo doortay inay noqoto qofka lagu muujinayo casharada. Tani waxay sababtay in shaqaalaha kale ay ku qoslaan, taasoo ay u aragtay eebayn. Waxay u malaysay in Kileeg si ula kac ah u dhibayo. Galabtii intii lagu jiray qiimaynta tababarka, kooxda Mika waxay si guul leh u gaadsiiyeen dhaawacii goobtii loogu talagalay, laakiin haddana waa lagu dhacay. Mika way ka hortimid go'aankaas. Kileeg ayaa markaas ku amray inay iyadu tijaabiso hawsha. Markii ay isku dayday ayay ogaatay dhibaatada dhabta ah ee ay kooxda samaysay. Ugu dambayn waxay aqbashay ciqaabta inkastoo ay weli wax yar ka cadhootay. Kadib markii tababarku dhamaaday, Mika waxay u tagtay Kileeg si ay ugu celiso koofiyadiisii. Markii uu gacanta u fidiyey si uu u qaato, ayay si ula kac ah u sii daysay iyadoo rabta inay eebayso. Laakiin Kileeg si degdeg ah ayuu u qabtay ka hor intaysan dhulka ku dhicin. Markii uu hadlay erayo ay hore u maqashay, Mika waxay gashay fikir qoto dheer, iyadoo isku dayaysa inay xasuusato halka ay hore uga maqashay hadalladaas.